dareenkaaga hayse warka doorashada aad iyo aad baan faraxsanahay gudoomiyaha Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan waa runtii waa nin aan u xiisa qabnaadaan bulshada Boosaasood aad iyo aad baan u xiisa qabnaa say ku xigeenkiisa hambaliyo baan leenahay Puntland Boosaaso waxaan ugu faraxsanahay saaka oo xilligan meesha u taaganahay maadaama la soo dadkii wax garadka ahaa noo keenay isagoo da'yaro maanta wax walba kala garanaya Allah ya baarig ma sha Allah waxaan leenahay hal buraanbur baan ornay bulshadii waa ku riyaaqdo runbay rabaan bulshadii waa ku riyaaqdo runbay rabaan shaqaalu waa ku riyaaqo shaqay rabaan Allah ya baarig ay doorashada ka dhacday hoolka degmada hoose ee degmada Boosaasood waxa farxad geliyay dad aqoon leh oo dhalinyaro ah oo fara badan inay xildhibaanada ay yihiin loona doortay degmada waxaan aad iyo aad iyadoo aan saa ugu faraxsanahay haddana ceeb ku ah Puntland 20 sano ka bacdi oo ay qaangaar tahay in wali lagu soo xulayo qabiil oo aan doorashada la dhigayn sanadiiqda degmooyinka xaafaduhu ay ka kooban yihiin oo aan shacabku wada codaynay waa ceeb bayna ku tahay duqa cusub waxaan leeyahay doorashadan ka dambaysa waxa ku tala gashaa in shacabku soo codeeyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حسين حلبانة دي كلها ديان كدقمة بوصاص هرانها هدنا وحاسوح لصوح الحلبانة دي عدو في عن حلبانة دي كلها ديان كعصبو حلي همبليو بوصاص وينبه هنتهاي يديكم مدا وقعما يسايستا كشقية دقمة بوصاص هل كان وحنا همبليان يا قدوميها عصب عبد السلام بشير همبليان لي قدومي كحيان كيسة بوصاص وكوبا هنا عبد السلام كسور دو وحول كام ونقول شقينا دانا حلبانة ده هراء حلبانة عصبة. أنا قلنا درانكيga waxaan hambalyeeyaa guddoom Bashiir waxaan leeyahay gudoomiye guul xilka lagu doortay Allah kula garab galo. hore Cabdisalaam baa noo soo noqday waxaan leeyahay xilkan Allah u fududeeyo insha Allah waan ku duceeyay damacaana waxa weeyaan ducadeeda waa helaysaa insha Allah waana heshay shayna waan ku ducaynaa darhaadna ku ducaadana waa heshay waxaan leeyahay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaasna ma sha Allah waad ku maadsantahay mar labaad noo soo hambalyeynaya duqa cusub ee degmada Boosaaso mudane Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan iyo ku xigeenkiisa Saciid Cabdiraxmaan Maxamed Goran waxaan leeyahay hambaliyo annagu ku hadlayna magaca qurba joogta degmada Boosaaso oo hambalyeynayna يا هوش وهي bulshada marka labaad waxa leeyahay gudoomiye Cabdisalaan hambaliyo gudoomiye wax qabadkiisa lagu doortay isagii Saciid Garoon in muddo joogay waxaan leeyahay hambaliyo alf marra hadaan reer Boosanahay waxaan aragnay wax qabadka oo 6 bilood uu joogay xildhibaanadan aad iyo aad ba ugu mahad celinay inay maanta codkooda aqlabiyad leh ay ku doorteen Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan DMI aad baan u faraxsanahay xaqiiqdii inaan mar labaad in mar kale la doorto gudoomiyaha degmada Boosaaso runtii aad baan ugu faraxsanahay shacabka u mahad celinaya dhammaan shacabka reer Boosaaso qaybahooda kala duwan waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin anigana waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay xilka igu astiro ku gelinaysa dareen in lagu doortay adigoo loo ogaa inta badan dadkan loo bartay qof xil haya in dib loo doorto runtii waxa weeye waxaan rajaynayaa in dhowrkii bilood aan joogay wax wanaagsan laga arkay waxaan rajaynayaa insha Allah taala inta dhiman oo xilli doorashadana in Ilaahay igu astiro oo sidaas si wanaagsan wax fiican laga arko aad u maastan